Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Xukuumadda Hirshabelle ayaa degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe ku qabatay kulamo qoto dheer oo dib u heshiisiineed oo la xiriira hannaanka awood qaybsiga Golaha Deegaanka degmada Maadai iyo soo xulista ergada Golaha Deegaanka, waxaana ka qayb galay duubabka dhaqanka degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee soo xulaya ergada dooranaysa xubnaha Golaha Deegaanka degmada Maadai ee dowlad goboleedka Hirshabelle, iyadoona odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay kulamadan qotada dheer ay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin kulamadan wada tashiga iyo weliba kulamo hore ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle hore u qabatay degmada Maadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxayna sheegeen inay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan dhismaha Golaha Deegaanka degmada Maadai, iyagoona sidoo kale tilmaamay inay ku faraxsan yihiin in golo deegaan ay yeelato degmadooda, waxayna dowlad goboleedka Hirshabelle ay kaga mahadceliyeen in golo deegaan ay ka dardargeliso degmadooda, iyagoona baahi weyn u qabay in degmada Maadai laga yeeleelo golo deegaan oo dadka shacabka iyagoo ay leeyihiin isla markaana looga adeego. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta Jowhar.